gujiska Titan oo ka daba tegay markabkii caanka ah ee Titanic dhimashadii milyaneerada sanadku markuu ahaa 1912 ayuu markabka Titanic ka dhaqaaqay boqortooyada UK isagoo u sii jeeda bariga USA gaar ahaan magaalada New York sida laga wariyay taariikhda markabkan oo ahaa kii ugu weynaa dunida waqtigaas wuxuu ku dhacay buur baraf ah taas oo sababtay inuu dego ayna badda ku dhintaan in ka badan 1500 oo qof inkasta oo ay ka soo wareegtay 111 sano haddana dhacdadani waxay ku tilmaaman tahay inay tahay shirkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay badaha adduunyada sanadka 1985 oo ah 73 sano kadib shilkii Titanic ayaa burburka markabka laga helay gunta hoose ee badweynta Atlantic Ocean dhacdada markabka Titanic waa mid caan ah oo laga diyaariyay warbixino qoraallo iyo hataa aflaam kala duwan laakiin muuqaalkeena maanta kagama hadlayno waxaase suurtagal ah inaan ka soo diyaarino muuqaal gaar ah haddii asxaabteenu inaga codsadaan muuqaalkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay goobta u yaala burburka markabka Titanic oo dabcan ah gunta hoose ee badda meeshan waxay noqotay goob ay beegsadaan cilmi baarayaasha dunida iyo dalxiisayaasha jecel tijaabinta meelaha khatarta ah waana goob aan lagu gaari karin dabaal ama muquul qof kasta oo jecel inuu arkana waxa uu u baahan yahay gujis ku qalabaysan tiknoolajiyad horumarsan shirkad lagu magacaabo Ocean Gate ayaa ku fikirtay inay maal gashato goobta taariikhiga ah oo ay lacag ka samayso dadka danaynaya in indhahooda ku soo arkaan markabka Titanic ee ay sheekadiisa maqleen ama ay ka arkeen shaashadaha gadaashooda shirkadan waxay farsameeyeen gujis ku qalabaysan tiknoolajiyada ugu casrisan adduunka si ay ugu qaadaan dalxiisayaasha u socda aragtida markabka Titanic gujiska cusub waxa loo bixiyay Titan oo dabcan aad ka fahmi karto in laga soo dheegtay markabkii taariikhiga ahaa ee Titanic gujiska Titan waxa uu ka samaysan yahay curyaha titanium iyo nudaha kaarboonka gujiskani waxa uu awood u leeyahay inuu gaaro gunta hoose ee badda in ka badan 4000 oo mitir waana cabir aad uga fog marka loo eego gujisyada madaniga ah halkii mar waxa uu ku maqnaanayaa badda hoosteeda 8 saac waxa uu xambaarsan yahay haamo oksijiin ah oo ku filan rakaabka muddo 4 maalmood ah sidoo kale gujiska waxa saaran qalab loogu talagalay in lagula xiriiro xarunta shirkadda oo hagaysa isla markaana maamulaysa socdaalka gujiska haddaba maalinnimadii Axadda 18 Juun ayuu gujiska Titan bilaabay safarkiisa 5 ka mid ah milyaneerada adduunka ayaana saarnaa gujiskan qofka koowaad waa Hamish Harding oo ah bilyaneer reer Ingiriis oo leh shirkad duulimaad kuna nool magaalada Dubai waana nin jecel tacabirka dalxiiska iyo booqashada meelaha aan dad badani arkin mar hore ayuuna booqday cirifka koonfureed ee adduunyada qaaradda toddobaad ee lagu magacaabo Antarctic sidoo kale sanadkii 2022 ayuu u safray hawada sare ee ka fog dhulka shakhsiga labaad Shahzadah Daawud isna waa ganacsade u dhashay dalka Pakistan waxa gujiska la raacay wiilkiisa oo ah qofka saddexaad ee qaybta ka ah safarkan qofka afaraad waa nin lagu magacaabo Paul Henry waa dalmar u dhashay dalka Faransa khibrad weyn u leh arrimaha badaha qofka shanaad oo ah kan ugu dambeeya liiska dadka ku safray gujiskan waa Stockton Rush oo ah gudoomiyaha guud ee shirkadda Ocean Gate ee farsamaysay gujiska Titan sida caadiga ah dhaqdhaqaaqa gujiska waxa lagala socdaa shaashadaha xarunta oo ku xiriirsan raadaarka halka fooniyaha ku rakiban gujiska lagala xiriiri karo rakaabka saaran safarka ayaana bilowday xiriirku waa sidii loo baahnaa mana jiraan wax caqabad ah gunta hoose ee badda ayaana loo jihaystay hal saac ayaana dhammaatay oo ka mid ah 8 saacadood ee loo qorsheeyay safarka saacadii labaad ayaa dhammaan rabta waxaana ka harsan kaliya 15 daqiiqo halkaas marka la marayo ayuu xiriirka gujiska Titan si kadisa u go'ay isku dayo kala duwan oo ay shirkadda Ocean Gate ku doonaysay soo celinta xiriirka gujiska ayaa fashil ku dhammaaday intaas kadibna shirkaddu waxay arrinta la wadaagtay ciidamada ilaalaha xeebaha dalka USA oo bilaabay baaritaan lagu badbaadinayo gujiska Titan iyo rakaabkiisa sidoo kale ciidamada ilaalaha xeebaha dalka Canada ayaa qayb ka noqday dadaalada lagu doonayo badbaadinta maalqabeennada shanta ah xiriirka gujiska Titan waxa uu lumay maalintii Axadda ee taariikhdu ahay 18 bishan taliyaha ciidanka ilaalada xeebaha Mareykanka John Maguire ayaa waraysi u bixiyay maalintii labaad ee baaritaanka ku sheegay in ay bilaabeen baaritaano ballaaran isla markaasna ay wargeliyeen ciidanka cirka iyo kan ilaalada xeebaha dalka Canada oo soo diray gurmad ka kooban maraakiib iyo diyaarado si ay uga qayb qaataan baaritaanka socda ugu dambeynna waxa uu sheegay inay kalsooni weyn ku qabaan awoodda ciidankooda waxa xusid mudan inay baaritaanka ka soo qayb galeen
maraakiib gujisyo iyo diyaarado ka socda dalka Faransa. bilowga hore baaritaanka waxa laga sameeyay aaga cabirkiisu yahay 1970 kiiloomitir oo isku wareega, laakiin gurmadka ka yimaaday dawladaha kala duwan ayaa suurtageliyay in aaga la baaray cabirkiisa la gaarsiiyo 3600 kiiloomitir oo isku wareega. haddaba muhiimadda rakaabka ay baaritaankooda iska kaashadeen 3 dawladood oo ka tirsan G20 iyo caanimada markabka Titanic ayaa kalifay in shabakadaha warbaahinta ee ugu weyn adduunyada ay si layfa u tabiyaan baarista rakaabka gujiska Titan. dabcan daawadayaasheena qadiimiga ah way qiyaasi karaan in dhacdooyinka noocan ah ay ka faafaan aragtiyaha shirqoolka oo inta ugu badan aan ku salaysnayn cadaymo la taaban karo. dadka qaar ayaa baraha bulshada ku qoray in gujiskan ay ku dhacday nacladda ama habaarka markabka Titanic, halka kuwa kale ay ku qoreen in maalqabeennada ay beegsadeen dhinacyo xisaabaad kala dhexeeyeen. dadka qaar ayaana dhaliilay qiimaha lacageed ee ay maalqabeennadu ka dhiibeen safarkan gaaban oo qaadan doona 2 ilaa 8 saacadood oo keliya, xilli ay adduunyada ka jiraan dad baahi u dhimanaya oo aan haysan waxay ku noolaadaan. kuwa kale ayaa dhaliilay dadaalada dawladaha iskaashanaya ay ku bixiyeen baadigoobka 5 qof oo maalqabeenno ah, xilli sanad walba kumanaan qof oo tahriibayaal ah ay badaha sida ugu dhimanayaan, weliba meelo ay ka soo badbaadin karaan ciidamada ilaalada xeebaha. 4 maalmood ee ugu horreeyay baaritaanka oo ku ekaa habeenkii Khamiista 22 bisha 6 waxa howlgallada baadigoobka lagu qeexay badbaadin, laakiin laga bilaabo maalintii Khamiista aragtiyuhu waxay u badnaayeen in aysan noolayn 5 qof oo ay mar hore dhinteen. shaashada warbaahinta caalamiga ah waxa qabsaday falanqeeyayaal aragtiyo kala duwan ka dhiibtay meesha uu ku dambeeyo gujiska Titan. gujiska dab ayaa qabsaday meel ciriiriyoon ayuuna ku xanimay, biyo ayaana gudaha u galay iyo faalooyin kala duwan oo dhammaantood ka dhigan in ay dhinteen maalqabeennada ayaa qabsaday warbaahinta. wararka naxdinta leh ee soo ifbaxaya waxa ka mid ah xubin ka tirsan maamulka shirkadda oo shaqada laga ceyriyay kadib markii uu ka digay halbeegyada badqabka rakaabka oo ahaa kuwa aad u hooseeya. sidoo kale jilaa u dhashay dalka Mexico oo lagu magacaabo Alan Estrada ayaa sheegay inuusan la yaabi doonin cilada ku dhacday gujiska Titan maadaama uu hore ugu safray ayna lumiyeen xiriirka xarunta hagista iyo maamulka ayna soo noqdeen waqti ka horreeyay intii loogu talagalay safarka. inuu dhashay dalka Germany ayaa isna sheegay inuu ku safray gujiska Titan sanadkii 2021 isaga oo ka warqaba cilada laga sheegay. waxa uuna ku tilmaamay qofka ku safra gujiska inuu la mid yahay qof naftiisa haligaya. kan ugu daran ayaa warka sheegaya in gudoomiyaha shirkadda Ocean Gate Token Rush oo ka mid ahaa dadka ku xanimay gujiska Titan waraysi uu bixiyay 2021 ayuu ku sheegay inuusan kalsooni ku qabin soo laabashada gujiska Titan haddii ay qabsadaan shabaagta kalluumaysiga iyo wixii la mid ah. ma jiraan laamo madax bannaan oo shirkadda Ocean Gate siiyay shahaadada badqabka oo sheegaysa in safarka gujiskan uu yahay mid ammaan ah. dhammaan rakaabkuna waxay ahaayeen kuwa arrintaas la socda. waxa uuna qofkiiba bixiyay $250,000 waxayna saxeexeen in aan waxba loo raaci karin shirkadda haddii ay wax soo gaaraan naftooda ama ay ku dhintaan badda. saxeexaas waxa uu shirkadda ka badbaadinayaa mas'uuliyadda dhibaatada soo gaadha rakaabka, balse waxaa soo baxday eedayn aysan ka baxsan karin oo tilmaamaysa inaysan ciidanka ilaalada xeebaha siin wax warbixin ah markii uu go'ay xiriirka gujiska. 8 saacadood oo ay la'aayeen gujiska iyo rakaabka saaran ayaysan wax warbixinaha siin cidda ay qusayso. arrintan waxay ka dhigan tahay dayacaad lagu maxkamadayn karo. ugu dambayn maalintii shalay ee Khamiista 23 bishii 6 ayaa la xaqiijiyay dhimashada rakaabkii gujiska Titan kadib markii la helay qaybo ka mid ah burburka gujiska. khubarada ayaa sheegtay in gujiskan uu qarxay sidaasna ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo uu ku jiro gudoomiyaha shirkadda. nooca qarax ee ku dhacay gujiska waxa lagu magacaabaa impulsion ama qarax gudeed. walaaxdu waxa ay ka qarxaysaa gudaha kadib markii ay la kulanto cadaadis xooggan oo kaga imaanaya dibadda. waxa uuna ka dhacaa inta badan gudaha hoose ee badda meelaha uu sarreeya cadaadiska biyaha. sidaasna waxa ku soo xirmay malafkii baadigoobka 5 maalqabeen ee ku dhintay gujiska Titan. ugu dambaynna waxa tacsi loo diray ehelada iyo qaraabada dadka geeriyooday. gujiska Titanna waxa uu la kulmay masiir la mid ah midkii markabka Titanic waxa uuna galaaftay nolosha dhammaan rakaabkii saarnaa. daawade sida ay kula muuqataa in $250,000 laga dhiibo safar qaadanaya 8 saacadood. ma kula tahay in shirkadda Ocean Gate oo 5 qof ka qaaday lacag dhan $1 milyan ay ka taxadartay badbaadada macaamiisheeda? mase kula tahay inay mudan tahay in lagu maxkamadeeyo dhacdada gujiska Titan? fikirkaaga nagula wadaag qaybta loogu talagalay ee commentiska. nabaadiino.